maalinka sagaalaadna waa maalinkii carafo oo mudnaan khaasa ayuu leeyahay soonkeedu uu leeyahay gaar ahaan dadka aan xajka aadin waa maalin weyn maalinka carafo oo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo iyadana mudnaan khaasa siiyay quraanka kariimka Allah tabaaraka wa ta'ala nicmo uu ina siiyo waxa ugu qaalisan oo ugu qiimo badan kitaabkan uu inoo soo dejiyay inoo dhammaystiray maalinkii la dhammaystirayna waxay ahayd maalin carafo ilaahay kitaabkiisa u dhammaystiray waxa tilmaamaya xadiidka Bukhari iyo Muslim ku yimid min xadiith Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa ni yahuudiya u yimid Umar markaas wuxuu ku yiri ya amiir mu'miniinta amiirkoodiyo aayad kitaabkiina ku jirta haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinkay soo degtay ciid baan ka dhigan lahayd Umar wuxuu ku yiri waa aayadee wuxuu yiri waa aayada al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina al-yawma akmaltu lakum diinakum ma antan diintiina idin dhamaystiray wa atmamtu alaykum ni'mati ni'madaydiina korkiinaan ku dhamaystiray ku taam yeelay islaamnimadana diin ahaan baan raalli idinka noqday aayadaasi haday annaga yahuuda nagu soo degi lahayd maalinka mudnaan khaasan siin lahayd Umar wuxuu yiri waan garanayaa maalinkay soo degtay iyo meeshay ku soo degtay waxay soo degtay buu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo Arafa taagan maalinkuna maalin jumca uu yahay ayay nabiga ku soo degtay buu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabcan wa hajjatul wadaa wa hajki nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay umada uu ku sagootiyay waay markuu hajka ka laabtay nabigu sallallahu alayhi wasallam sideetan bari waxaan 3 sano dhanay waxaan 3 bilood dhanayn buu nabigu sii noolaa sallallahu alayhi wasallam yaani waxay tilmaamaysaa muhiimadii nabigu uu dhulka u joogay inay soo gabagabowday oo waxay kamid tahay ayadaha tilmaamaya geeridii nabi maxamed inay soo dhawaatay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum wa maalin ciida wa maalin jumca oo jumcadu waa ciida usbuuca muslimiinta ومركا لبادي مالينتا عرفة قارهان قرين كيدا الدنبي وحا لغو تيريا عيدا لغو تيريا مالين وين بي مركا سودكت مالين كاسي مركا منان خاصو ليه ومالين إلهي تبارك وتعالى أودن بدافو خلائق دا إن أن ترسانين ونترى لهين ونان ترين كرين إلهي أودن بدافا ومالين دادك عرفتها غاني حجيدا ربي تبارك وتعالى وملائكتي سأوفان ويراد فيريا ومالين وين innaga dadka aan xajka aadina waxa sunno oo loo jideeyay maalinka inay soomaan oo nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maalinta Arafa soonkeeda Allah waxaan kaga rajaynayaa inuu sanadkii ka horeeyayna ku dhaafo dambigii la galay sanadka soo socday ka dambeeyana inuu dambigii la galo ku dhaafo marka sagaalka bariba wada soomi kartaa maalinkaasina mudnaan khaas u siilay soonku marka cibaadadka waa weyn waxa kamida nafaqada iyo ihsaanka iyo samafalka kamida oo mar walba amal jaliil oo ilaahay loogu dhawaada oo a'maal fara badan oo qaasir oo ruuxa ku eg ka fadli badan waa nafci mutaaddi oo gudbaya waay ilaad marka waxa weeye hadiiba ilaahay wax ku siiyay maalmaha iyaga gacantaada aad furto sadaqadaadu badato khasnada wax badan aad gashato adiga dantaada iyo maslaxadaada weeye waliba munaasabada ay ku soo hagaagayso wax weeye ummadii oo faqri iyo gaajo iyo abaaro iyo macaluul u baabaaya waa munaasabad weyn oo cidii ilaahay tabaaraka wa taala agtiisa inay wax dhigata doonaysay heli karto awoodeedii ilaahay tabaaraka wa taala fursad uu siiyay waa in marka wax way gacanta aad furto wax sadaqaysato waxaad heli karto qaraabada xidhiidhiso gacantaadu furnaatood wax sadaqaysato acmaasha waa in ilaahay loogu dhawaaday kamidtahay al-amalu salih ذكرك إلهي خيراتك وناقاسي وح الله وحد قاري كرتها يريسانين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صحيح قاتب وآله تبارك وتعالى صحيح لقات وحا أغفي عن الله كعبسك طاعة إنات صحيح قادته خيراتك أت صحيح قادته مدول بوح كدر سطوت كيالته
khayrku kuu bato si aad mustaqbalkaaga ilaahay agtiisa wax weyn uga hesho fursadeedii baa ina hortaala maalmaa inaga xiga ilaahay hayna gaadhsiiyo oo tabaaraka wa tacaala haynugu simee waxaa la doonayaa inaynan fursadaasi si fudud iyo inagoo mashquulsan iyo inagoo moog inaysan ina dhaafin أين كفايدة بإذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان يا حي يا قيوم يا قوي يا قهار وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك